Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xiliyadan oo kale ayaan idiin soo gudbinaa. Alaab waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibaddaba. Qodobada caawa barnaamijka aad kaga bogan doontaan ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la shiray beeshiisa iyo kulamada uu wado oo natiijo la yaab leh ay ka soo baxeen. Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo mar kale wajahaya xaalad culus iyo cidda uu xabisan yahay oo la soo bandhigay. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo cambaareeyay weerarkii xildhibaano lagu dhaawacay ee ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle, iyo Turkiga oo loo arko inuu ku garabsiinayo madaxweyne Farmaajo in awood uu ku haysto xukunka. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir, subscribe saar, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. waa habeenimo ay sii baxaysa Sabti, Axad ayaa soo galaysa, taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 11 bisha December sanadka 2021. waxaan u guda galaynaa qaybaha hore ee warkeena. aynu ka horeyne Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa kulamo xasaasi ah ka bilaabay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoo uu la shiray xubno ka mid ah beeshiisa. isla markaana kulamadaas ayaa waxaa laga soo warinayaa in natiijooyin hordhac ah ay ka soo baxeen. ila wareyti lagu kalsoon yahay oo ay warbaahinta helayaan ayaa sheegaya in odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda beesha reer oo Xasan ay la kulmeen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xilligan oo xaalad adag uu marayo dalka, isaguna uu ka mid yahay dadka jaangooyinta siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya kaalinta weyn ku leh. kulanka oo ka dhacay Muqdisho ayaa waxa uu ku saabsanaa jagada xildhibaannimada beesha in sanadkan la siiyo Fahad Yaasiin, uuna codsaday iyaguna odayaasha ay ballan qaadeen in la soo saari doono oo kursigaas la siin doono. kursigaasi waxaa ku fadhiyay sanadihii la soo dhaafay xildhibaan Faarax Sheekh Cabdiqaadir. hase haatee sanadkan waxa uu la kulmayaa cadaadis weyn iyo tartan xoogan oo uga imaan doona Fahad oo lagu naanaysay 4 sano ee aynu kasoo gudubnay milkiilaha dowladda. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo bishii September uu magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa lacag badan ku bixinaya sidii kursigaas uu ugu guuleysan lahaa. madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya in Fahad Kulanajiis iyo weliba xubno uu ku jiro Yaasiin Farey ay noqdaan kuwo xasaanad leh oo dhib kasta oo loo haysto ka badbaada 4 sano ee soo socota. horey waxa uu ugu guuleystay madaxweyne Farmaajo inuu u soo boobo kursiga beesha wacaysle Yaasiin Farey, iyadoo kursigaas uu ka taagan yahay buuq aad u xoogan, isla markaana ay ku dhowdahay in dib loogu laabto, inkastoo guddiga xalinta khilaafaadka baaritaan ay ku wadaan nidaamka uu u dhacay kursigaas doorashadiisa. waxaana Fahad kulamada uu ka wada Muqdisho ay ku soo biishabanayaan inay yihiin kuwo uu doonayo in xasaanad uu ku helo xildhibaannimo. Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo muddo dhowr sano ah xabsi guri ku ah Muqdisho ayaa la warinayaa in xaalad culus uu wajahayo, isla markaana waxaa la ogaaday cidda uu u xiran yahay. bartamihii bishii 8aad sanadkii 2017 Mukhtaar Roobo oo ay ilaalinayaan ciidamo ka tirsan kuwa NISA ayaa warbaahinta kula hadlay hotel ku yaala magaalada Muqdisho, wuxuuna cadeeyay in xubinnimada kooxdii uu ka tirsanaa ee Al-shabaab uu ka baxay 5 sano ka hor, iyadoo ay u sii raacdo 7 bilood oo dheeraad ah xilligaasi, isla markaana uu wada hadallo kula jiro hoggaanka dowladda. Mukhtaar waxaa si aan gabad lahayn uu u sheegay in si buuxda uga baxay kooxdaasi, isla markaana sida uu sheegay isagu uu taageersan yahay wax walba oo nabad ah, waxaana ay Al-shabaab abaabuleen waddo kasta oo ay u mari karaan sidii ay ninkan cadaadis u saari lahaayeen intii uu ka soo baxay, iyadoo ciidan isaga uu hogaamiyo ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Bakool. wada hadallo dheer kadib Mukhtaar waxaa loo fasaxay xorriyadiisa oo dhan, waxaana dabayaaqadii 2018 go'aansaday in uu isku sharaxo xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, xilligaas oo uu ugu cadcaddaa. laakiin si lama filaan ah ciidamo isugu jira kuwa dowladda iyo kuwa Itoobiyaan ayaa gacanta ku soo dhigay. haddaba Mukhtaar Roobo Abu Mansuur ayaa la sheegayaa inuu u xiran yahay madaxweyne Farmaajo, isla markaana qorshe gaar ah villa Soomaaliya ay ka leedahay xiritaanka uu xiran yahay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo hoggaan u ah xisbiga amni iyo cadaalad. Mukhtaar oo dhowaan wareysiga uu bixiyay eersaday ayaan dhowaanahan wax hadal haya xitaa aan la arag,
iyadoo la warinayo in culayska lagu kordhiyey isla markaana ciidamadii horay ula joogay laga bedelay kuwo cusubna loo gacan geliyey. sidoo kale waxaa muuqanaysa in aad iyo aad odaygan dadkii isaga ku haybta ahaa ee siyaasadda ku jira ay ugu fashilmeen sidii ay xorriyadiisa u soo celin lahaayeen. magaalada muqdisho waxaa xabsi guri ku ah oo weliba haysta internet uu dadka kala xiriiro sheekh xasan daahir aweys oo ka mid ahaa hogaamiyaashii ugu sareeyay ururkii xisbul islaam markii dambena kooxdan ka mid noqday. hase ahaatee xasan daahir aweys wuxuu ku joogaa awood siyaasadeed oo ay leeyihiin dadka isaga uu ka soo jeedo, halka dadka ninkan uu ku haybta yahay ay dhammaantood yihiin kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ku taageersan in uu ninkan sii xirnaado iyo kuwa ka soo horjeeda laakiin hadalkooda meel dheer uusan gaari karin. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa si kulul u cambaareeyay qarax miino oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar kaasi oo lala beegsaday xildhibaano ka tirsan Hirshabelle. qoraal ka soo baxay gudoonka baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxaa lagu sheegay in lala eegtay qaraxaasi xildhibaano iyo dad shacab ah oo ku sugnaa maqaaxi, waxaana ku dhaawacmay 2 xildhibaan. oday dhaqan ayaa halkaasi ku dhintay iyadoo dad kale dhaawacyo ay soo gaareen. gudoomiye Cabdixakiin Luqmaan ayaa qaraxaas dhacay ku tilmaamay mid argagixisanimo, wuxuuna caafimaad degdeg ah u rajeeyay xildhibaanada dhaawacyada ay soo gaareen. xildhibaanada waxay kala yihiin Cumar Gaabow iyo Yuusuf Cabduqaadir Karaani, waxaana sidoo kale xildhibaan Cumar Gaabow qoraal uu ku baahiyay boggiisa Facebook uu ku sheegay inuu haatan xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay, wuxuuna u mahadceliyay dadkii halkaas gurmadka ugu yimid dhammaan dadkii waxyeeladu ay soo gaartay, iyadoo sidoo kale uu muujiyay xildhibaanka in musiibadaas ay ahayd mid aad looga naxo. dowladda Turkiga ayaa loo arkaa xilligan inay ku garab siinayso madaxweyne Farmaajo in awood uu ku sii haysto dalka. shakiga la xiriira in diyaarado drones ah nooca lagu farsameeyo gudaha dalka Turkiga loo gacan geliyay villa Soomaaliya ayaa sii xoogeysanaya, waxaana eedda la xiriirta in diyaaradahaas dalka ay soo galaan dusha ay ka saareen mucaaradka madaxweyne Farmaajo oo doonaya in xukunka awood uu ku mararsado, iyadoo sidoo kale baqdin xoogan ay wajahayaan dhammaan golaha midowga musharaxiinta. inkastoo musharaxiinta aysan ka wada hadlin dhammaan si warbaahintana si waadix ah aysan ugu soo bandhigin, ayaa haddana waxaa muuqanaysa in diyaaradahan hadalhayn badan ay ka abuureen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiintaba, iyadoo ay isku raaceen in khatar badan dalka ay ka jirto haddii aan arrintan wax laga qaban. madaxweyne Farmaajo waxaa lagu eedeynayaa inuu doonayo sida uu u dhaqmayo Asiis Afwerki si la mid ah inuu u dhaqmo, taasi oo xilligan ay adag tahay in dalka laga hirgeliyo sida uu aaminsan yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah musharaxiinta madaxweyne ee sanadkan 2021. waxaana sidoo kale madaxweyne Farmaajo loo sheegay in khatarta ka jirta Soomaaliya isaga uu horseed u yahay, isla markaana xilligan loogu baaqayo madaxweyne Farmaajo in xukunka uu iska wareejiyo inta burbur kale dowladnimadan yar aysan ku imaan. ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa si awood leh u soo fargelisay xiisadda ka aloosneed maalmihii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso, taasi oo u dhaxaysa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani iyo Generaal Maxamuud Cismaan Diyaano. ciidamada BSF waxaa tababaro Mareykanka si ay ula dagaalamaan argagixisada, taasi oo ka dhigan in Mareykanka ay daneynayaan arrintan kuna qasbeen in faragelin qasab ah ay ku sameeyaan oo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ay amaro dul dhigeen. sida xogta aan ku helayno, safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ka walaacsan xiisadda marba marka ka dambeysa kor u sii kacaysay maalmihii ugu dambeeyay ee dhinacyadan ka dhaxaysa. diblomaasi sare oo Mareykan oo Muqdisho ku sugan ayaa sheegay in siyahayaha safaaradda Mareykanka ee Muqdisho Colin Crowledge ay 2 jeer la hadashay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani iyadoo ku amartay inuu xal aan xabad ahayn ka gaaro arrintan. guud ahaan waxaan ku boorinaynaa in ciidamada nooc kasta oo ka mid ah Soomaaliya ay ka waantoobaan ku lug lahaanshiyaha siyaasadda. waxaan ku boorinaynaa dhammaan ciidamada ammaanka in ay diiradda saaraan la dagaalanka ururadan, isla markaana ay yareeyaan rabshadaha ayaa lagu yiri. dhinaca kale wadahadallo u socda maamulka madaxweyne Siciid iyo weliba Generaal Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa rajo laga muujinaya. wadahadalladaas oo loo arko inay ku yimaadeen
culayska dowladda Mareykanka ay kala kulmayso madaxtooyada maamulka Puntland. guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda Hage Media ayaad kala socoteen. intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo nooli kulantay amaana Allah.